degdeg akhbaartii farxadda badneed ee la wada sugaayay ee ahaa madaxweynaha Donald Trump iyo maxkamadii federaalka ahayd oo soo dhamaatay akhbaartoodii ayaa muuqaalkan ku daawan doontiin insha Allah iyo akhbaartaas farxadda badan xaakimka degmada Mareykanka Jamal Whitehead ayaa ku amray maamulka Trump in uu si degdeg ah u dajiyo ilaa iyo 12,000 oo qaxooti ah isniintii u dambeysay marka waxaa farxad u ah dadkii dhammaan wada sugaayay falaayadii laga kansalay 3 bilood ka hor markuu maamulka Donald Trump uu la wareegay xafiiska dawladda Mareykanka balse Trump ayaa saxiixay amar fulineed maalintii ugu horeysay ee xafiiskiisa uu ku hakinayo dib u dejinta qaxootiga wuxuuna ku amray waaxda amniga gudaha in ay 9 maalmood gudahooda ku soo warbixiso in dib u dejinta ay dhan u tahay Mareykanka macnaha 39 maalmoodna wuu dhamaaday laakiin doodii labada maal oo u dhaxaysay hay'adaha u shaqeeya qaxootiga u shaqeeyo iyo sidoo kale maamulka Donald Trump ayaa la soo afjaray midda soo ah ee laga guuleystay maamulka Donald Trump inkastoo ilaa hadda ay soo jawaabin balse waxa lagu amray isbuuc gudahooda inay soo bilaabaan taariikh 12 waxa la rajeynayaa inay dib u bilaabaan hay'adihiisa samafalka u shaqeynaya ee qaxootiyada ee wadanka Mareykanka joogay waxa la rajeynayaa taariikh 19 isla bishan May in falaayada dib loo bilaabo falaayada la hakiyay sidoo kale dadkii caafimaadka marayay ee muddada dheereed sugaya caafimaad falaayadooda hataa wili loo sheegin hataa ayakana way ku jiraan falaayo badan ayaa la rajeynayaa in bishan May ilaa iyo bishan toddobaad in la soo dejiyo la soo gubsay laakiin May ayaa dadkii falaayadooda la kansalay oo dhan la bilaabi doonaa waqbartasna aad ay u fiican tahay maadaama dad badan ay sugaya oo caalamka gudahooda qaxootiyada ku nool sida qaxootiga Kenya, Ethiopia, Uganda iyo qaxootiyo fara badan ee caalamka gudihiisa caalamka dibadiisa ah sida qaxootiga Indonesia, Malaysia, South Africa dhammaan waxaas oo dhan qaxooti ayaa joogay falaayadooda dhan ayaa la kansalay balse hadda falaayada hadii dib loo bilaabayo akhbaartan aad ay farxad u tahay sidoo kale hadii Mareykanka dib u bilaabo sida hadda uu sheegay Jamal White warkiisa ayaan dul istaagi doonaa insha Allah inkastoo aan soo gaabin doono hadaladan ku dheeran doonan garsoore Fareer Fadlan ah ayaa isniintii amar ku siiyay maamulka Trump inuu si degdeg ah dib u dejin ugu sameeyo ilaa 12,000 oo qaxooti ah gudaha wadanka Mareykanka iyadoo la raacayo amar maxkamadeed oo qayb ka ah xanibaadii amarkii fulitaanka ee madaxweynaha Donald Trump oo loogu leeyahay in lagu joojiyo barnaamijkii qaabilaadda qaxootiga xaakimkan degmada Mareykanka ee Jamal Whitehead oo 2023 uu magacaabay madaxweynihii hore ee John Biden ayaa soo saaray amarkan inkastoo maamulka Trump uu sheegay in lagu guda jiray dhageysiga dacwad isbuucii hore in ay tahay kaliya in ay ka beeraan debto 160 qaxooti oo dalka soo galay waxayna u baahan tahay in ay raacfaan ka qaadan doonaan amar kasta oo banaan kumanaan in la aqbalo macnaha wili Donald Trump ayaa si amrayo in uu sheegayo Donald Trump ayaa wili ku andacoonay laakiin balse waxaan arki doonaa haduu Ilaahay ee beedmo Donald Trump wili uu si adkeynaya laakiin balse maxkamadda ayaa ka weyn garsooraha wuxuu sheegay maxkamadda waxeeda ciyaar ma ahan sharciga ayaa wax walba ka weyn u dhahay maamulka Donald Trump marka waxa la rajeynayaa isbuuciidan soo socdo waa loo hirgelin doonaa ay oo ma shaqada bilaabi doonto akhbaartan aad u farxad badan wixii soo kordhan insha Allah waxaad ka daawan doontiin qaxootiga Dhab TV maalin kasta wararkeena taxanaha ee dib u dejinta iyo wax walba soo baxo waxaad ka daawan doontiin insha Allah qaxootiga Dhab TV aad iyo aad u mahadsan tahay haddii intan aad ku cusub tahay haddii channel ku cusub tahay fadlan waxaan ka codsanayaa like ta subscribe ta noona share muuqaalka si aad maalin walba joogto u socoto sidoo kale asxaabtaada wadanka Mareykanka joogo qaxootiga joogo dhammaan qof walba aad gareys muuqaalkan share gareey dad badan oo asxaabteeda oo ku xiran oo muuqaalada share gareey aan arka aad iyo aad u maasantiin idinka dartiina ayaan horumar u gaaraynaa insha Allah idinka aan horumar gaarsiin doono waana maasantiin billahi tawfiiq